وكلا تكتين محاسب نسا وإنا تهي قف كابل آدم كأه عن كو مشغولين وحي الشالي دعوي نفسيست ثيرابيست تاجرو ثيرابيست راسو ثيرابيست آد سو داوي سو نفس مسكحداada soo dhiso aqligaaga soo dhiso quruxdaada ka tali xoolo sameeyso hanti sameeyso shaqayso horumar samee adiga is qurxi jim aad kaala arag baruurta iska dhim collagenkaaga cab skin care routinkaaga saxo naag nool iska dhig adigoo qurux badan adigoo dhoola cadeynayo adigoo kaala arag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayga waa idin salaamay meel walba adduunka joogtaan waa walaashii Najma MBR halkaad iga daawanaysaan waa Najma MBR channel soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo saafiya ha ilaawin inaad channelka like subscribe noo saartid videoga like garaysid si asxaab badan uu gaaro soo dhawaada mar kale imar saddexaad caawa walaashii Najma MBR maxay ka hadli rabtaa Najma MBR caawa maxay ka hadli rabtaa caawa waxa ka hadli rabaa gabadhaha Soomaaliyeed maxay tahay sababta markii loo furo ay iskugu furaan maxay iskugu buuqaan maxay la waashaan maxay la walbahaaraan maxay ma aragtay ay nolosha uga dhacaan qofka bil aadanka ma aha nolosha markuu ka dhaco lagu sheegayo ma aha inuu dharka siibo ma aha inuu balwad barto ma aha inuu niki ma aha muxuu gabadhi ay iskugu buuqdaa maxay la walbahaartaa maxay guri iskugu soo xirtaa muxuu depression ugu dhacaa waxyaabahaas igu qasbay inaan arrintan iyada ah ka hadlo waxa kamid ah shalay casirkii markaan hurdaan ka soo kacay salaad casiraan tukaday anigoo salaad casir markaan tukaday kadib wax yar aan joogay baan TikTok fiiriyay waxaan arkay gabar live ku jirto gabadhaas ee ka sheekeynayso qisada ninkeeda isay ku kala tageen waxa gabadha TikTok waxay kaga sheekaysay part 1 waxay kaga sheekaysay part 2 qisadii way ku soo dhameysay waxay tagtay YouTube qisadii oo dhan way soo dhameysay aniga dadkii dhameystaan ku jiro oo dhageysanay qisadeeda haddana live ay ku jirtay markay ahayd 10 saac oo aniga ahayd 4 galabnimo 9 habeenimo anoo sii seexana haddana TikTok fiiriyay still gabadhi waxay ku jirtaa live-kii waxay ka hadlaysaa ninkii asaga ahaa waxyaabihii uu sameeyay ka hadlaysaa hooyo waay qurbay joogtaa Mareykanay joogtaa Mareykanay ku nooshahay waa hooyo damba ka dhacdo ilma sugaayo nafteeda sugayso wax inay qabsatay sugaysaa maxay tahay marka sababta hooyada intanoo saac ay emotional u tahay ay maarta uga hadlayso arrintan iyada ah maxay tahay waxa arkay gabar qalbi dhagax gabadha ku soo galayso kale waxay maalin dhaxdaas waxaan arkay iyadoo ooynayso qaracansano samrila maxay tahay gabdhahan waxyaabahan ma aragtay sidan u guwaay maxay tahay gabdhaha ay la qafiifaan maxay u xanuunsadaan muxuu depression ugu dhacaa soo tan waligeed aleed la isfuri jiray Soomaha hadii ma aragtay furiinka uu samaarta lagu waalanayo ama wax dhibaato u keenayo ilaahay waaxidkeena furiin ma keeneen labada qof ilaahay waaxidkeena wuu ogaa markii la isdhibaateeyo in furiinka lagu kala badbaado buu ilaahay u soo dejiyay asagoo haddana ilaahay furiinka nacib yahay buu haddana ilaahay waaxidkeena wuxuu u soo dejiyay maslaxadeena ma fahanteen marka maxay tahay gabdhaha sababta arrinta nooca maxaa gaarsiiyay rabaa inaan ka hadlo gabdhaha maxaa heerka gaarsiiyay markii ma artay ay u qafiifaan ay qaladaadka u hore gabdhaha Soomaalida ay galayaan waxa kamid ah waxa loo yaqaan red flag qofka marka la nooshahay oo aad guri wada joogtiin oo aad ma aragtay ma sha Allah tabarakallah oo ninka zawjkaaga uu yahay oo zawjadaada ay tahay oo qofkan uu isku ka bedelo waxa dareemaysaa wuxuu ku tusinayaa red flag fara badan ku soo shidnay gabdhaha Soomaalida marka waxay sameeyaan red flagaas oo dhan way inkaraan example waqti badan lama siinayo waa hadii la rabo la aflagaadeynaya hadal kulula lagu dhahayaa bil fiican lama siinayo ixtiraam ma laha qofkan anytime buu iska baxaya anytime buu guriga ku imaanaya mar allaala markii dan laga leeyahay baa maartay sida neef baqti amal maartay dantii maartay wixii laga lahaa laga sameystaa maaragtay waxyaabo fara badan qofka bini'aadamku waa dareemaysaa loo nooshahay inuu dhibaatooyin soo wado waa dareemaysaa haday gabadha tahay haday wiilka yahay waa dareemaysaa gabadha Soomaalida marka waxa soo dhan ma arkayso hadii aan gabadhan ninkan uuba la guursanin ba uu kaligeed uu qaba laakiin uu caynayo ayada isbiilayso aflagaadeynayo hadal adag uu dhahayo uu naxariisaneenin waa ku furaaya ugu goodinayo naaya hadahadashid waa ku furiya naaya maxaad naaga waan guursanaya afru ilaahay iibnay aan qalbigeedaba ilaalineenin gabadha way la noolaanaysaa red flag yo dhanba inkaraysaa
laakiin naag ha guursado ama intuu kaskiisa ka maago baagiisa ha qaato warqadaada indhaha lagaa geliyo ha lagaa tago gabadha Soomaalida markaas baraarugaysaa waxaad u maleynaysaa qof biyo qabow qof hurda oo biyo qabow inta lagu shubay markaas asaga ah kacay aad u maleynaysaa qofka bini'aadanka waxa loo baahan yahay marka u hore inaad baadhigaaga dhageysatid qofka markuu baadhigiisa dhageysanayo marka waxa dhibaato lagu sameynayo uu dareemayo marka uu ka hadlayo marka uu leeyahay aniga meeshan uma qalmo marka uu leeyahay aniga sidan ina la yiraahdo uma qalmo mana qaadanayo saani xal ma aha saani wax ka bedel nolosha marka uu leeyahay qofka uu u dagaaltamayo samcadiisa sharaftiisa qiimihiisa dadnimadiisa marka uu u dagaaltamayo hadii bari la kala taga xitaa gabadhaas damage fara badan ma soo gaaro laakiin gabadha damage-ka uu soo gaaro waa gabadha ayadoo inta wax walba lagu sameeyo way aamusan tahay wax walba lagu sameeyna waa la cayna waa la aflagaadeena hadal xuna la dhaha lama biilaayo lama ixtiraamayo ilmaha ayada iska dhasho cunug meel ay ku foolatay lama ogo meel cunugeedu ku socdo lama ogo meel ay umul kaga baxday lama ogo biilkaas kan ugu fiican baa biil ku siinaya qaarkood biil ma siiyaan gabadha Soomaalida intaasoo dhan ninkan intuu yahay gabadha Soomaalida ma hadlayso because naag lama guursanin hadiiba naag la guursanin she doesn't care qofkan wuxuu sameynayo I don't know ma garanayo ma fahamtay okay taasi waa taas midda labaad gabadha Soomaalida inta badan waxaan sameynaa markaan xoogahoo yar lacag isku aragno diinta islaamka ayaaba gabadha ninkay guursanayso ilaahay uu dhahayba guursan ninku dhaqani karo ninku biilani karo nin maartay cuntadaadii dhaqaalahaaga waxaaga bixin karo qasab ma aha nin faqri ah inaad isku rartid gabadha Soomaalida waxay sameynaysaa war iskama hayso waxay guursanaysaa cunug maaragtay asagaba tiisi haysato salaadi ku fiicneen maaragtay timihiisa labiskiisa aad jeclaanayni bay guursanaysaa lacag ay gelinaysaa qarash ay gelinaysaa hanti ay gelinaysaa way rucleynaysaa nafteedii iloobaysaa naftiisay daba ordaysaa iyada nafteedii ma qiimeynayso iyadoo koob shaah cabid bay qofkan koobkii shaaha siini xoolaheedii iyo hantideedii dhan ay ku dhameynaysaa bari qofkii naakalo garaaca naakalo ka guursanaya marka wixii dhan ku soo kacayo ma accept gareynayso because shalay may arkeeni waxaano red flag agteeda ku meereysanayo may arkeeni qofkan inuu lacag kali ku soo raacay atay maarta waxyaabo badan qofku waa dareemi kartaa laakiin gabdha Soomaali balaayo waxa ku dhigteen ignore war inaad gurigaada burburiso qasab ma ah inaad gurigaada burburiso reerkaada iska furtid ma ah laakiin ina waxa qaladka dhacay iyo waxa dhib oo lagu haay inaad ka hadashid xaq baad u leedahay inta naag la guursado ama la gaarinba gabadha marka waa la kala tagaa marka la kala tago gabadha maskaxdeeda ma aqbalayso because waxay aqbalaynin shalay waxay u soo dul qaadatay wixii oo dhan ku soo maaxan dhibka ay shalay soo martay ninka ay shalay biileysay ninka shalay iyadoo hadal xun dhahayo ay ilmaheeda meel ay ku dhashay meel kale aysan ogeyn ida kaligeed maarta iyadoo lala nool yahay oo xaas ay tahay haddana ilmaheedii kaligeed haddana maaragtay korinayso wado asaga meesha u jiifo waxyaabo fara badan xillado fara badan maanta gabdhaha Soomaaliya haysto ee indhaha ka daboolanayaan mid haday dhado waa hadlina waa dagaaltamaysaan waa caytamaysaan midda hadashana waa mid caytami oo dagaaltami oo guruunka haysto oo indhaha cadeynayso oo kabta tuuri oo daciska tuuri xal ma aha taasi adoona caytamin adoona dagaaltamin adoona gurigaada burburinin ba intaad fadhiisato aad xaqaaga dhacsan kartaa okay seed ooga badbaadaysaa marka bari qofkan hadaa kala tagtaan inaad maskaxdaada nadiif ah aad guriga uga baxdid seebad ku heli kartaa calaamadaha red flag markaad aragtaan maskaxdaada la sheekayso marka aragtay ninka inuu maartay naaga waqti siinaayo inuu ku ixtiraameynin inuu ku respect gareyneynin inuu jacayl ku siineynin calaamaha red flag sidoo ninka inuu naag shukaansado ninka inuu ku ixtiraameynin ilmihiisa waqti siineynin ma aragtay waxyaabo badan waa dareemaysaa listen your body jirkaaga dhageyso waxaa jiro feelings oo ilaahayga waaxid ku inaa dumarka siiyay waxyaabo qaldan markay jiraan feelingkaasa waxbaa dareemaysaa wuxuu ku leeyahay waxbaa qaldan qofkii kuu fiicnaa ma aha qofkii ma aragtay saxda aha ma aha uu ku leeyahay ha enkarin feelingka isaga ah markaad qofkan aad aragtid inuu yahay qof aan noloshaada u qalmin dib u deg meel fadhiiso maskaxdaada la tasho
نايا هيدا هبلايوي واتكو عسى example هذا نجمع عليها نجموي قف كان الله نوشاي ما أنت كو احترامينين شعيل كو سينينين كو وناجينين كو إلالينين وحو أفكيس سوقبتو كو دهايو أنا كفكرة أوكي أنا كمركب حاسمين يا وحكود دالي سيدان عافيمات كي يكون بدباتسان لها maskaxdayda aqligayga waxaan ku xirayaa this person waa qof meel u cad Soomaha aniga waa inaan maskaxdayda caafimaadkayga joosta iyo ahaataa waa inaan qofkan bini'aadanka ah aan arkayo waxaan qaladaad uu igu sameynayo inaan maskaxdayda raaciyo ma aha waa inaan aniga isla hadlaa okay waa inaan aniga go'aan meel qaataa waa inaan aniga dhaho haddaad bari waalatay adigaa waalatay haddaad bari qabri gashay adigaa qabri gashay maanta qofka adigoo noolo xayo caafimaad badan oo qurux badan oo dhalaalka iyo daanka leh kaanix waa do you think bari haddaa waalatay inuu kaanaxayo do you think bari hadduu depression kugu dhaco oo aad isdisho oo naftaada dhib u imaato oo ilmahaada dhaawac gaarsiiso oo adigoo nolosha aad ka dhacdo inuu kaanaxayo maya soo qof bilaadan nolosha aadan ah nolosheeda uma burburinayo qofka bilaadanka adoo la nool oo la joogtid baa markaas iyada ah niyadaada iyo maskaxdaada waxaad ku celinaysaa bari haddii wax kasta soo baxaan waa inaan ready u ahaada waa inuu jirkayga maskaxdayda aqligayga waa inay ready u ahaataa taasaad ma aragtaa inta la isfurin inta la isdagaalin inta waxaasoo dhan dhibaatooyina marka u hore imaado oo dad isnoolonoo isku faraxsan maba isfuraanba soo ma dhibaatooyinka markayba waa inaad isku sii tashatid marka okay waa kala tagteen kala tagteen maxaa sameynaysaa waa kala tagteen maxaa sameynaysaa waa inaad tahay qofka bini'aadanka ah aan ku mashquulin wixii shalay dhac way dhaceen waad kala tagteen daaseed noloshiisa ka sheekeynin qaabkii lagu furaa ka sheekeynin qaabkii lagu guursadaa ka sheekeynin haddaa rabti inaad hadashid oo hadalka aad ku nafisaysid therapist-aa jiro therapist raaso therapist aad isu soo daawee soo nafis maskaxdaada soo dhiso aqligaaga soo dhiso quruxdaada ka tali xoolo samayso hanti samayso shaqayso horumar samee adiga isqurxi jim aad kaala arag baruurta iska dhim collagenkaaga cab skincare routinkaaga saxo naag nool iska dhig adigoo qurux badan adigoo dhoola cadeynayo adigoo kaala arag ha lagu arko ha ku meeraysanin qofkii shalay aa kala tagtay ha ku meeraysanin ilmaad isku haysaan ilmahaaga korso ilma diin iyo maadile ka soo saar aabaha ilmaha hadduu soo xiriiriya ha u diidin hadduu ku dhaho ilmaha kaxaysanaa banaanka geysanaa si hadduu ku dhaho ilmahayga biilanaa si hadduu ku dhaho ilmahayga soo wacda okay ilmahayga waxaa siisanaya ka qaad stress free laakiin ha noqonin ma aragtaayo qof aqbali waayo qofkan siday ku kala tageen no asagaba wuu aqbal adigana waad ku qasbanta inay aqbashid nolol samaystay waa ku qasbanta inaad nolol samaysatid adigoo konton jir ah waxaa helaysaa wiil yaroo 15 jir ah ma fahamtay aad helaysaa video kale insha Allah videogu nagu dheeraaday waxaa kaga soo hadli doonaa video kala soo duubi doonaa insha Allah hadii Ilaahay awood leh ka raali noqdo qari caafimaad idin rajeynayaa sidaas nabadgelyo ha ilaawina channelka subscribe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.